daahfurka shirkadda Hana Limited waxaa lagu marti qaaday qeybaha ay ka kooban tahay bulshada iyadoo xarun labaad ay shirkaddan ay ku yeelanayso magaalada Istanbul. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Mudane Sheekh Maxamed ayaa lagu marti qaaday furitaanka shirkaddan isagoona intaasi kadib hadal kooban goobta ka jeediyay. waa shirkad ku soo biirtay shirkadaha degan Istanbul marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa guul iyo najaax كلي وحكيش عندهم تعرمها قناع سجى وكل الدول مركو تفاصيل كل قدوميها يا مارت الإنسان دورة مركو حاليا هاي سيد الشركة وكل وصول ويني وصول وهذا قاع مفورا مارت وضع شغال في عن إن شاء الله تعالى وحرجينا إلى كان في عن أتكقى كان أورك قلع ستة صوماليين الجراء إلى تكون بيرتان وكان كقالتان رجينا إن شاء الله تورك سواء سلامتي الشغف في عن قبطة وليرجع قلع ستة ورنتي نظام يقدمون مارت الوسمي هذه أنا أقول فرح صلى هاي مركتنا وحنا نقول سوق القلي كقدومي هذا اللي يقول عسومي arrimaha kaargowga waxbarashada caafimaadka iyo waliba jaridda tikidhada ayaa ka mid ah adeegyada ay qaban doonto shirkaddan sida uu sheegay maamulka shirkaddan Maxamuud Xuseen Axmed. aad u mahadsantiin inta soo qayb gashay xafladan furitaanka shirkaddan Hana Export and Import Cargo oo maanta noo gaarnay maalintii xaragteeda waxaan aad u faraxsanahay in nagala soo qayb galo gudoomiyaha jaaliyadda Sheekh Maxamed iyo gudoomiyaha dhalinyarada iyo maarta gudoomiyaha dowladda jaaliyadda iyo qaar ka mid ah ganacsatada iyo asxaabtii magaalada Istanbul waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad inaad nagala soo qayb gashaan furitaanka shirkaddan maanta aan ka daafurnay magaalada Istanbul gaar ahaan magaalada Fatih. guddoonka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Turkiga Salmaan Cali ayaa waxa uu sheegay in fursad shaqo looga raadiyo shirkaddan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul. waana bogaadinaha ganacsiyaasha Soomaaliyeed oo ka furma waliba qaasatan kuwa dhalinyarada ay hamiga si ugu leeyihiin inay maanta intay ama tahriibil hayeen ama hawlo kale qof walba intuu haysto uu ku fikiro inuu ganacsi suubiyo sababtoo ah qofku markuu ganacsi suubiyo wuxuu u faa'iideynaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqaalaysiina waxa ka faa'iideysaa waa Soomaalidii u baahneed in wax loo urura saas oo kale Maxamuud hadda waxa ka wada hadalnay xataa xafiiskeena dhalinyarada ahaan inuu laba qof oo dhalinyaro u keeni doono shaqada aan oo shaqaalaysiina. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ayaa aad waxay u soo dhaweeyeen in shakhsi dhalinyaro ah uu abuurto shirkaddan. waxaan aad ugu hambalyeeyaa nin dhalinyaro oo Maxamuud oo meesha ku soo kordhiyay shaqo oo cargo ah taasoo aad noogu muhiimsan anaga ka dhalinyaro ahaan fursado badan aan ka heleno cargo wallahi isaan ognahay cargoyada qaar waxyaabo badan ay ka tageen laakiin cargogiisa waxyaabo badan ayuu bixiyaa haddii noqoto dadka inuu wax xareenay jaamacado haddii noqoto tourismiga dadka geeniyo tikidada uu jarayo. bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada Istanbul waxa farxad noo ah maanta inaan kala qayb galno furitaanka shirkadda Hana Export and Import Cargo oo ah shirkad Soomaaliyeed rabtana inay shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka guud ahaanba alaabaha u kala dirto Africa, Asia, Europe iyo America ba waan bogaadinayaa runtii ganacsiga Soomaalida ee ka furmay magaalada Istanbul waxaa ku soo kordhaya shirkado ganacsi oo ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo bulshada u qabanaya adeegyo kala duwan. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal Istanbul.